kulankan cashada ah ay soo agaasintay safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan isla markaana ay goobjoog ka ahayeen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Suudaan Cabdulle Xasan Xuseen Fadiilatu la taliyaha koowaad ee safaaradda Abuukar Boston oo qaybsanaa warfaafinta safaaradda Fiido Maxamuud Fiido iyo waliba Suldaan Kamaal oo kamid ah guddiga abaaraha Suudaan. ujeedka kulanka ayaa ah sidii loo qaban lahaa bandhig faneed gacan loogu geysanayo abaaraha ka jira dalkeena Soomaaliya. دجرا سفارة الصومالية دلك السودان محمد عبد الله أوغاس وله هذه قربان تقرنك أيها تباحي وجدك وين كلهم كانوا عسير لو قبل لها بدك فناد لعقل وأرون يدك أي أبارت صاميسي. شرف وين حاول نوع يعني ونوي ماذا فنان كوين ما هلا أو runtii aan caawa ka wada hadalnay sidii abaaraha iyo dhibaatooyinka Soomaaliya jira oo qayb nagala qaadan lahaa una u dhigi lahaa bandhig faneed loogu arurinayo lacag oo runtii caaway casharkan aan sameynay waxa ka soo qayb galay jaaliyadda dadka reer Suudaan. marka barnaamijkan wuxuu dhici doonaa ilaa weekend gudihiisa waxaan filaynaa dhammaan dadka reer Suudaan ee maqlaya inay ka soo qayb galaan arrintan weyn ee uu fanaankan caanka ahi u soo bandhigayo. dhanka nimcaan Cabdiraxmaan Xasan nimcaan Hilaa oo sin la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka codsaday dhammaan Soomaalida ku nool Khartoum inay ka qayb galaan bandhigga lagu caawinayo walaalahooda. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan shacabka reer Khartoum. waxaan aan dhawaan qaban qaabinaynaa ama aan diyaarinaynaa barnaamij lagu taakulinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ay kala qayb qaadanayaan guddiga abaaraha ku sugan Khartoum safaaradda. marka waad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bulshada ka codsanaynaa haddii la hay'admo in ay nagala soo qayb galaan barnaamijkaasi lagu caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen haddii la yiraahdo. dhawaan ayay hadda markii guddi heer qaran oo ka kooban 15 lagu doortay caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan isla markaana ka qayb qaadan doono u gurmasho dadka ay abaartu soo gaartay. Yuusuf Maxamed Macallim Kashmir warbaahinta qaranka caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum.